kula wacana wanaagsan asxaabta qaaliga meel baa joogtaan iyo si walba inoo daawanaysaan kusoo dhawaada Suman Podcast iyo weliba episode cusub aan ugu magacdarnay ka shaqaysiga online-ka badanaana barnaamijyadeena waxaan kusoo gudbinaa wax tayo u leh dhalinyarada barnaamijkana maanta waxaa marti ku ah Med Ibrahim oo asagana ka mid ah dhalinyarada suuqa sariflaha online-ka ama trading-ka ka shaqaysto Med kusoo dhawaada Suman Podcast ama asanta daqiiqada aad iyo aad barnaamijkana u sii gudagali doonaa Med waxaan aragnaa badanaa Soomaali fara badan wasaarad haysato siiba dhalinyarada telefoon haystaan shaxaad ku nool xaqiiqda markii laga hadlo adiga ahaan maadaama suuqan online-ka aad ku jirtay dhalinyarada oo kale shaxaad ku nool ama suuqa sariflaha ama forex-ka iyo Soomaalida waxay ka aaminsan yihiin waa naqaanaa oo waxay u maleeyaan meel adiga si kale adiga ahaan maxaa ka aaminsantahay assalaamu calaykum waan idin salaamayaa dhammaan waana ku mahadsantahay casuumaadda quruxda badan ee barnaamijkii ugu casuumtay si fiican barnaamijkan xaqiiqdii waa barnaamij in laga hadlo u baahan dhalinta siday wax u jiraan iyo siday wax u shaqeeyaan iyo waxyaabahii marka ay ka fogaan lahayn ayadan in la fahansiyo wax walba adduunka aad samaynaysid laba dhinacda u fiirisid labadu waa samayn kartaa maanta podcasting aad joogno waa awoodaa in aad ku samayso waxyaabo yacni sharafta ama bilaadanka damiirkiisa markaas aqliga siinayna ama muslimnimadaada wax u dhigaa inaad ku samayso waa awoodaa sidoo kale waa awoodaa dhalinyarada Soomaalida in sidaan oo kale barnaamij noocan u samaysid oo ayaga dantooda ay ku faa'iideysanayaan marka waxaa ku keenay barnaamijka online-ka laba qaab oo kala fiiri kartaa haddii aad rabtid in aad ka shaqaystid qaabka saxda u soo gali kartaa waa mid anaga ku jirno haddii kalena scamaska wadada scamaska ee raacana ayadna raaci kartaa oo magaca kaga dheeli kartaa si fiican marka fikir ahaan aniga waxaan aaminsanahay in ay tahay meesha ugu habboon oo maanta qof dhalinyaro ah oo ii sheeg oo ku noqon karo meeshii naftiisa uu ku xoreyn lahaa dhaqaalihiisana oo markaa uu ka tabcan lahaa haddii uu la imaado shaqadii markaa lagu talagalay meesha laga rabo waayahay adiga Med ahaan sidee trading ku bilowday tradingka waxaa ku bilaabay 2018 bilowgii waxaan arkay yar madow ah oo la wareysanayo markaas waxaan geli jiray internetka oo meelo badan waxaan raadi jiray qaab online lacag ugu sameyn lahaa sax marka waxaa dhacday maalin in la kulmay video forex waxyaabaha lagu hadlaa yar dhahayo dad badan way yaqaanaan Sandil Shezi alla wuxuu geli jiray doolshooyinkii waxyaabahaas multi millionaire oo noqday markii dambe tradingka marka storygiisa dhageystay then waxaa dhahay okay this might be a good idea ina marka forex bilaw si fiican waan baxay waxaan raadiyay meeshii aan markaa ka baran lahaa xawaalad waxaa jirtay oo rag asxaab ah yani reerkooda markaa ay lahaayeen oo hadda la xiray xawaaladaas wiilasha aan wareystay marka wiilasha waxaan forex aaro inaa bilaabo idinka forex waa ku jirtiin marka ani ima kala baxsano online-ka qaabka loo sameeyo iyo qaabka suuqa loo sameeyo waxa waaye ima kala baxsano sax wiilasha marka adiga waxba saas iguma soo kordhin waa baxay meelaan tagay meel markaa tagay iyadana forex-ka caadiga oo lagu kala sarifo oo sida ajaanibta u sameystaan meelaha tagay marka meelaha tagay gabar madow arkay gabar madow waxay u dhahday marka waa in jaamacad soo dhigataa shahaadana soo qaataa si forex u bilaawdo arintii marka arkay waxaan ka cararayo waa shahaado iyo wax in lagu xijeeyo waa iska dhaafa marka 2018 dhamaadkii marka waxaan arkay dhalinyaro marka Soomaali ku jirto oo ka hadlayso forex-ka ayaga marka qaraabo ahayn mid adeerkii mid eedadii dhashay midna habriirtii dhashay kuya marka barnaamijka ii keeneen then barnaamijkii marka sidii aan ku galay oo aan ku bartay waxaa jira marka yar Soomaali ah oo khayr Allah siinta ka salaamaya macallinkii wax soo baray Mr. Mwalimu Abdul Mwalimu macallinkaas ka bartay oo waagaas asaayindan uu kala furay sidaas forex ku soo galnay anigoo raadinayno in aan sameeyno markaas dhaqaale qaab online ah iyadoo shahaado xabano lagu xirin okay inta aad ku guda jirtay forex-kan ama suuqan trading wax caqabadaha kala kulantay caqabado badan waa kala kulnay caqabadaha kala kulnay waxaa ka mid ah fikirka forex lagu soo geliyay iyo wixii markaa meesha imaan xaqiiqda inay kala duwanaayeen oo fikirka ani Maxamed ahaan forex lagu soo geliyay waxay ahayd galo taajir $100 akoon ku shubo $100 bish kala bax fikirkii anoo wado lacag $100 haystay hooyo imaaday waxay dhahay lacagta u baahanahay waa soo aruuriyay lacagta si ay dhahay waa si waa baxay $100 soo deensaday $100 ninka waxa uu sheekay in isbuuc gudihiisa ku siinayo oo waxay u qaad 4 bilood $100 ina ninka u gudo maalin walba 2,000 siinayo isbuuc walba
ama 3 asbuuc kadib 2 kun asaa u siinaa عندي taa waxaa ii dheereed in markaa familka iyo asxaabteeda dhow aan la wadaago oo mid dhib ii keentay dad badan oo forex ka shaqaystana dhib u keeni doonto صح yani bilaabi doono oo dhalinyarada bilaabi doonto marka caqabadaha waalidka kala kulmo waxaa ka mid ah Soomaaliyan aana soo Soomaalida dhanka adduunka uma horumarsano sida waalidiinta kale ma waalidiinta ajaanibta kale ma marka diinteena waa nu sii dheerta oo qofka maanta waalidka Soomaaliga ah hadii arko waxyaabahaas wuxuu leeyahay ama wax qaldan qofkan xaaraan waxyaaba uu sameeynaa wixii ka cilnaa adina niid ahaan dhalinyarnimo ahaan waa rabtaa wixii oo ina markaa samaysid aydan caqabad kale waa صح marka waalidkii maanta dhan waa lagu la hadlaa asxaabtii qaar waxay ku leeyihiin hay forex kan bilaa wadaa maxaa ka soo saartay maxaa dhaqaale aa samaysay maxaa nolosha wax ku daroosaa marka iidan taa caqabad kale ka mid tahay oo dhalinyarada marka ay la kulmaan iyo caqabadan kale igu weyneed oo ah gal oo taajir lacag hore ka samee quick money aan lagu soo geliyay marka waay fikirka Soomaalida xagga forex ka aaminsan yihiin wax noo sheegi kartaa arrin fiican la taabto waay sanadada soo dhaaf waxaa jirtay Soomaali badan in markaa forex lagu dhacay waxaa jeclaa maanta codkii dad badan oo gaari doon laakiin waagaas codkii dad badan markaas muusan gaarin forex markii laga soo tago Soomaalida dad aanan wax xubsanin oo badanna aaminaadaan ugu badan maanta daa qof u yimaado oo idhowrniyo Maxamedow barnaamijkan aa jiro $1,000 haday gelisay $300 ka helaysaa ka lacag soo gasho orinka hebel ahaa ii soo sheegay waxbaa ka jir 300 oo soo qaatay bal anana ka hor doono anana markaa bil qaata adaa ku soo gelinaa adina waxa leedahay waa sax ninka hebel ii soo sheegay ka hor doono sax marka dad waxaa jiray oo og Soomaalida in markaa fikirkooda uu hooseeyo inta badan mar aaminaadoodan ay sareyso oo research badan iyo waxaas markaas aysan sameeynin scammers ku faa'iideysana qofka scammerka marka uu faa'iideysana soo dad badan lacag laga aruuriyay dadka dhowr qayb oo kala bixin qaar aqoon dala u geysay oo markaas suuq lacagta markay geliyeen ayaga lacagtii way ka gubatay qaarkood ajaaniba lacagta loo dhiibay ajaaniba gubeen qaarkoodna waxba forex ma wala gelin ma ogaayeen inaysan cilmigooda meel la gaareynin oo marka cilmi buuxsan lahayn waxay kala ogaan ajaanib inta lacagtu gelin lahayn meesha ku dhamaanayso qaarkaas maxay sameeyeen lacagta gadaal dhigteen oo dadka markaa Soomaalida hooyadii shaaha gadaysay hooyadii looska gadaysay aabihii gaargacan wax ku wareejinay dhan lacagtooda markaa hantidii forex lagu wada dhacay magaceedana meesha markaa ku halaabay okay forex markii waa iga waayahay adiga waxay ugu dhahday $100 aan ku bilaabay oo deen ahayd kadibna waan ku khasaaray oo 3 bilo igu qaadatay inaan 4 bilo igu qaadatay inaan $100 aan gudo waxaan dhahay xiligaas waxay 2018 ka 19 ka meelaha waayahay maxaa kugu sii dhiirigeliyay marka meesha khasaara ku qabtay bee waa aragtay bee inaad ku khasaartay maxaa iska dhaafaysa maxaa kugu dhiirigeliyay inaad hor u sii wadato okay qaacido waxaa jirta oo aaminsanahay haddii meel $1 ka samayn karto $1 million ka samayn kartaa marka arkay inaa khasaara inaa wax faa'iido oo arkay meesha inaa wax un ka samayn karo waxaa ogaaday meesha aan waxa garanaa meel hadda mar soo gashid kumid yani mitid maalla kunoq meeshii ku dhignaa ilaa kamera dhashid ma sha Allah marka waxa inta u boodinaha waaw hal meel wax ka keen marka research si sameeyna inta barnaa khasaara research si sameeyna mugta waxa ogaaday in shaqadan ee lacag leedahay in waxyaabo faa'iido badan sida wax xoriyad dhaqaale yani waqti inuu ku jiro marka waxa ogaaday in wax iga qaldan yihiin oo wax si qaldan ah u sameeyna marka waxa isii wada waxay ahayd yani wax qaldana sameeynaysa Maxamedow xaqiiqda iyo sida informationki wax u jiraan inta ka gaaraysid baashan sii wad marnaba gadaal ha u jeesanin waa soo gashay in adag noqo dhabar adeeg waxaan hor u sii wado taas marka waxay keentay in marka hor u sii socdo gadaarda marka gudaha u soo gashay qasaari uu weynay aagasho goormay ahayd maalinta isdhihi karto maalinta waa qasaartay maalinkaay hadda aad sheegtay maalin oo kale way jirtaa maruu qasaaray oo Soomaalida qaar og yihiin iyo maruu uu faa'iiday oo markaas one day wuxuu ku sameeyaa u maleynaa $100 lacag aad u badan hal maalin gudaheed si fiican soo marka adiga maalintee ku waxmeed maxaana qasaartay maalin igu waxmeed ay jirtay account markaas lacag igu jirtay oo waxaa jirtay ku tirigelin jiray covid time ka imaada suuqa volatile ahaa macnaha xamaasadiisa suuq zayd u kacsaneed trader gale traderkii markaa galay waa account $36,000 igu jirtay traderkii $1,000 meena soo tagay then asxaabi waxa la tashtay asxaabtii waxay ugu dhaheen insha Allah hope the best traderkana howlgaray ha xirin si high traderka marka traderkii wiilashii si high igu dhaheen hope the best insha Allah marka waxa dhaa okay qaar waxay ku leeyeen
عادي انت horta isla markii isaas la gaarin trade waa howlgareeyay habeenkii $2,000 meel soo tagay askaga seexday maalintii kale wuxuu tagay oo double gareeyay $4,000 tagay wow then waxa xasuustaa gurigan ka baxay isliya soo aaday asxaabas la soconay bis guriga markaas li imaaday oo xaafadda ku laabanay waxa meenas maray $8,000 ilaa $10,000 meelahaas u dhaxaysa jecla tirada sibcna ma waxay ahayd maalin oo I think khamiis soo gashay amanayna halkaas maalin waxa ku qasaartay waxa maray adi almost $10,000 meenas meelahaas trade marka ma xirin wili meeshu taagan yahay waa si wada oo ku indhaadaga then khamiis miya waxba soo galay si fiican xasuustay dhowr sano ka hor waa soo baxay adi trade isbuuca soo howlgalay igu xiran suuqa waa la soo laabtay meenas $10,000 tagay marka $10,000 markoo tagay gadaal dambe waxa ka dhacday marka in damco trade in aska xiro inta akoonkii u hartay markaas abad baadsad balse meesan dhicin oo waxaan rajeeyay in marka trade si howlgareynaa waxa soo habeenkii waxa seexday akoonkeyga oo $10,000 meenas habeenkii seexday salaad subax soo kacay akoonkeyga waxa ku hartay $7,000 meenas oo ku jira waxa ku hartay $30,000 meenas ku hartay ilaa $9,000 ma aqaan oo meenas oo ku jira soo adi waxa xasuustaa tirada akoonkeyga hartay meenas ma fiirsanayaan tiradii hata markaas fiirsanaa $7,000 salaad subax soo kacay habeenkii waxa seexday bulbul aan yahayo waxa hurday 2 hours oo maleena marka soo kacay trade subax hurdada ka soo kacay waxa dhacday in musqusha galo soo weysaysto marka soo weysana soo laabanay remember waxa ku dhaca suuqa covid time waa suuq volatile waa xamaasad u kacsanta so minutes ka suuq inta soo dhaqaaqa soo laabtay akoonki $3,000 ku hartay $32,000 meenas ku jira wax aan sameey markaan ma garanayo waxa waaye ilaahay ina baridi qofkii kula hadlaata inuu ku salaamin karo ma kaysid صح maadaama suuqa xamaasadiis kacsaneed waa soo baxay akoonkii xogaha meesha isku celceli markaa soo baxay waxaan imaaday maalinta ku xigtay isliya imaaday isla maalintaas isliya markaa imaaday waxaa galay isheeg masaajidka markaa gale soo tukaday masaajidka gale waa soo tukaday salaad casir anuu ilaaha baryaay masaajidka banaanka soo baxay kawaha xirtay mobilka la soo baxay akoonkeyga $100 ku jirta trade-kii waa isjare $100 bis $100 ay waartay that means waxa qasaartay $6,000 bis that moment waxa ku hadlay ma garanin hal ina 24 hours ku qasaartay $6,000 span of a weekend marka go-aankaaga markaas muxuu ahay forex mar qofku inaa ka baxayd muu ahaay mise waa sii jiidatay wallaahi saa hore kugu sheegay waxaa aaminsanahay if you can make $1 you can make $1 million xaqiiq waay meel haddii mar aa soo galinay oo el meesha lacagta eedaa ka sameeya haddana eeda iga laabatay fikraddeeda markaas horta marnaba iguma soo dhicin forex inaa iska dhaafo runta markii laga hadlo hal mar hataa iguma soo dhicin forex inaa iska dhaafo balse niijaba iska jiray 3 maalin camal aan wareersanay yar saaxiibanahay isla hadalnay yarkii xogaa marka hob isiiyay lacag waxa jirta koraasiga contract dawladda xaal lagu galgalay oo $2 milyan ahayd lacagtii nin uu dhiibay lacagtii nin ku dhintay cireek soo bixisay marka uu ii wacay waxaabiyuu ii sheegay xogaa marka waxa ka heray dhiirigelin in waxaan xoolo adduun ay yihiin still inaa wiil yar ahay oo hadduu ilaahay cimri siiyo meel fog gaari karo waa u gooy marka waxaan dhahay yani quitting dhan niideeda ma soo galin waa soo nastay markaa soo nastay waxaan dhahay maxamed cilmiga shala aawadatay waxba ma ka jiro tomorrow suuqa daarta dam meesha gaarisa hadan hamra dhulku soo dhacay so you need to change something markaas waxa bilaabay marka in research badan aan sameeyo dad badan aan la hadlo arjaani badan aan la hadlo I don't know if I can show Telegram ka waxa ku tusaya anigoo lacag yani haystay oo nin lacag haysta akooyin ku trade gareynaa oo maalintii $300 sameynaa oo seminaar laga wacaayo oo waxa ku tusaa xaalad inaa kasoo gudbay oo anigoo qof u oynaayo oo calaacal u diraayo message calaacal leh oo ka baryaayo koorso oo aan rabay $50 bil walba lagu bixinayo inuu qofkaas isiiyo deen ahaan igu qoro message bluetiga la saaraa I don't care aniga waxa ii cad koorsadaas bis inaa helo bis waxa ku tusaa anigoo murig ahayso anoo codad duwa anoo calaacal anoo 100 qoraal diraa ninka markii dambe inuu iga wuxuu dhahaa oo man
okay soo gal sax koorsada markaas ku soo biiray 3 bilood ku jiray wax badan waa ka faa'iiday marka ani dadka waxa ahay hadii aan ogahay meesha inay dan igu jirto whatever it takes wax walba sameeyna ma sha Allah hadii ay buris xataa harantii u soo toortid ana waa taagnaana ilaa meeshaas wixii aan ka rabay aan ka helo marka ka waxa kula maasantaa hadda way bur kartaa waay maalintii kugu farxad badneed oo asdhihi karta waaw maalintaas waa ku kala xirneed waxay u farxadneed maalin jimce ahayd waa baxay subaxa soo kacay $2,000 sameeyay salaada aaday waa kiimaad khudbada $2,000 sameeyay salaada casir aaday hadi dadka saacadaha train gareemata waagaas oo dawladda suuqa iskaga jirno laakiin hadda system and plans aan noo degsan marwalba suuq ma ku jirno casirka waa baxay $2,000 sameeyay مغرب كانوا مساك في ساعة $2,000 سميسو ما أنت حكوا حارس $2,000 بروفيد فيديوز نحوي على يوتيوب كلاد ما كسارين أوكي واي يعني سيستم استراتيجي ومركز وكودك سماجرو أمر دنيرت عديلات سيستم كاسي وحاسم مرة سيئات وخسارن سوق أو جلستين سيستم أوفي عن سيستم وجرا استراتيجية وجرتا بقول استراتيجية تميل استراتيجية جران حقيقة dadka forex yaqaano استراتيجية maaha kaliya wax lacag lagu sameeyo forex ka waxa lacagta laga sameeyo oo qofka yaani lacag ku sameyn karo waxa waaye mental game waayedan oo qofka maskaxiyan psychology discipline kaaga patience kaaga greed kaaga emotions kaaga waxyaabahaas hadaa control kartid lacag waa sameyn kartaa so strategy wise yes of course strategy fiican oo age leh oo meel higsanayso waa u baahan tahay ina yac markaas isticmaasho hadda aniga kale teamkeena waxa jirta strategy powerful oo 6 sano aan la bedelin oo ayada isticmaalno marka waxa laga yaabaa isla ayada ina wax ku dirno ama wax ina ka yareeno balse system good waxa tiirka ku taagan tahay marnaba lama bedelo ayada isticmaalna marka of course plan wajira if you don't plan waxa dhahan you plan to fail okay way hadda waxa usoo gudbina qaybihii dhex barnaamijka iyo sida loo baran karo way suuqan trading inaad qof ka baratid iyo inaad akademiyad ama meel aad tagtid iyo inaad adig kaliya baratid ka ugu haboon ama ugu fiican mid kuwaad inta baa la sameyn karaa laakiin mid ugu fiican hadii aad ka hadlo waxay tahay in aad raaysid qof markaa results ka aad arabtay nolosha in aad ka hesho qof haysta markaa in aad raaysid qof waxa ugu fiican in aad qof ka barato oo mentor aad yeelato because mentor markaa leedahay wuxuu ku yaani ku barayaa horta wixii saxda ah suuq markaas waa si ka isticmaalo oo lacag ku sameeyo mid kood sidoo kale wuxuu ku shot gareynaa waqti kaaga bixila in information badan ay soo raayso aniga ku dhahay badda hadii xagga ka aadid malaaga xaq uu buuxa tag soo ugaarso laakiin hada ku dhaho yaani iska gal badda malaaga bax iska raadso waa soo helay of course malay right laakiin mara soo wareerto so marka qof ina ka baritid wax yaani qurux badan waayo oo adiga ku qurux badan dhaqaalaha oo qurux badan waqtiga oo qurux badan results ay ku gaaraysid si fiican ina mentor yeelatid iyo qof adiga oo markaas ku dhiirigeliyo qof marka adiga ku hago wadada saxsan ku tuso wixii qaldan ka reebo marka waa muhiim in marka aniga dhan mentor soo yeelan having mentor is not wax la ceebsada ma aan wax laga cararno ma okay adiga maxamed ahaan waxa ku jirta social media of course dhalinyarada kula soo xiriirtaa qofka markuu media ku jira hadana forex ku jiro waa la soo xiriiraa dhalinyaro fara badan oo rabto in ay waxaan bartaan sida ugu faa'iideysaa amba sidee uu dhiirigelisaa inay wax ku bartaan dhalinyaro badan sax waan la soo xiriirtaa dhalinyaro danaynays markaa inay nolosha wax ka bedelaan forex inay bartaan way jiraan waxaan aniga sameynaa waxaan leenahay akademiyad oo markaa ku tirin kareen ardayda forex rabta inay barato marka akademiyadaas waxaan dhahnaa soo xaadir haddii markaa magaalada Nairobi joogaan akademiyada class la imaanaya class ka qofka la siinaya gacanta loo fadhiisanaa waa la tababaraya wax dhan waa u sameynaa haddii qofka markaa online uu ku rabane ayadana u sameynaa arintan oo in mentorship bixinay waxay ku dhalatay I think 10 bilood ka hor inta sana tirgelina 10 bilood ka hor so the first I think 2.5 years adi up and down is get so from there stable and bashi alhamdulillah marka last year markii ku dhalatay in marka bulshada soo dhaxgalno dhahno okay it's time to give back the community marka ardayda rabtay forex barato ama daneynayso waxaa jirta qaab u dijinay oo marka ay forex-ka ku baran karaan anigoo baranay lacag ma sameyn karaa yeah of course sameyn kartaa laakiin waxa u baahan tahay asaasi inaad iska dhigtid intermediate level na soo gaartid
keliya lacag waxaa ku samayn kartaa hadda anigoo kale waxaan leenahay system yani noo degsan oo ardayda wax naga barato marka qofka ardayga asaasiga fahmo meesha lagu socdo meesha laga imaanayo qaabka wax socdaan kadib waxaan yani u sameynaa oo qofka laanan aan wax la dhahay just wuxuu qaadanaa tireerka marka ani aaro inaan qaato waqti suuqa inaan galayo qaadanaa systemka marka suuq ku raacala lagu tababaraya asi wax barashiis gees ka wado haddana akoomadiisa iyo qaybihiisa kalena gees ugu furayno gees ka wada so laba goor qofka choice kale labada mid hore inoo sameeyo ama wax barashiis inuu hamar dhameystirto ama in marka asaasiga fahansiino oo intermediate levelkii soo gaaro wax kale fahansanya in marka aan ahay haduu rabo inuu dhaa macallin inuu asaa codsanayo aniga qof kuma dhaan asaa codsanayo qofka laanan aan marabta yani waa raba macallin guriga samee u dari kartaa saanisan saas ma artaha kale systemka daari cali waana mudayar waa sameynaa way sidee marka suuqan sariflaha lacagta qalaad sidee dadka lacag ugu sameyn karaan oo dhaqaale suuqa forex hadii cilmi aan leedahay استراتيجية كودك سنتا بلان على هذا discipline إيه psychology and emotions كذا لسين علمي مشاهد دكسو سارة دكسو جامعة ما انت بمعن just علمي فوركس كسوقا وحرفة حرفة قابك وشقة سوقا ميمد لبرنا حتى اوكي ميمد وحاول لبرنا سوقا قابك سوق دقاقه from markiis lacagtan qiimaheed kor aaday ina gali kartid markii qiimaheed hoos dhaca lacagtan is gadi kartid markii lacagta qiimaheed kor joogin hoos nijin dhaxda ay ku jirto ina banaanka taagnaan kartid saddex shay suuq lagu baraa soo saddex shay markaas si suuq aabartid then suuq markaa waa fahansantahay maxaa u baahan tahay plankii istiraatiijiyadii markaas ku hagto u baahan tahay waxaan ka rabaa farqiga u dhaxeeya qabiir forex iyo qof bilaaway oo ku jiro markaas khasaari iyo baalki فائدة فرق وين ودحه فرق كود ودحه waxa waaye qofka khabiirka ah wuxuu og yahay maanul basuuq in markaa malaay u yaalin laakiin qofka bilaaga waxa laga soo dhaadhacsiiyay ama qofka aan professional ka laga soo dhaadhacsiyo suuq lacag inuu leeyahay so every day soo istaagaya wuxuu rabaa in markaa lacag uu sameeyo which of course is not going to happen suuqaas uma shaqeeyo suuq forex-ka in professional level aad gaartid am in aan noqotid trader khabiir ah waxay u baahan tahay extra level ina yani maskaxdaada iyo cilmiga ina gaarsiisid there is a work laga rabo marka ina sameysid for example shaqada fududa wax simple ah laakiin wax adag waxay tahay bilaadanka qofkii ma raacayo talooyinkii iyo tusaalihii markaa la siiyay ilaa kullaado loo mid noqonaysaa am kuleelkaas inuu ka dhex baxo dhaani kuleel intaan ay u filan I'm gonna do what it takes to be a professional trader am inuu dhaho I'm done I give up loser oo noqdo oo suuq iskaga baxo oo holiis kale iska sii wata marka qofka professionalka ah mid kood he knows suuq every day marka suuq malaay ma yaalo is not gonna show up every day to take a trade waxa ku soo haray mid kale qofka professionalka ah wuxuu og yahay if he loses today there is another day fahmaysa so maanta haddii qofkan khasaaro biri wuxuu og yahay suuq kale inuu jiro waqti kale inay jirto dilaa gaarsiiyo oo resultskii maanta suuq uu ka arkay result ka duwan inuu biri markaa suuq oo ka soo heli karo halka qofka loserka ah ama unprofessionalka ah uu sameynayo revenge trading oo ah in marka oo dhaho horta tomorrow dhan kuma fikiraa and it's not shameful man because anaga dhan waa soo wada marnaa levelkaas sometimes xataa ilaa hadda la joogo marmar waa ku tuuranaa inuu dhaho like I have to make back these losses today marka wixii ka baxay inaa soo ceshid I have to make this back so marka saas ku fikirtid waxa ku fikiraysaa loser mindka tariga gareeso ah fikir ama qorshe saxan marka ku dhaqmays ma jirto waxay dhahan bilaadanka study mar arkay bilaadanka maalinta wuxuu qaadan karaa laba go'aan oo saxsan so labada trade u hore hadaa qaadatay oo go'aamada ka khaldameen is very good in a step back sameysid because the more you do the more damage ageysanaysid just step back dib u noqo u soo qaado shaashada tag ama sabuurada tag qor wixii aad sameysay maxaa khaladay horta waxaan lacagta waaya ku dhuntay soo ogaab wixii aad khaladay soo ogaa meel soo saaro so difference u dhaxay marka professional markuu maanta qalad sameeyo gadaal u baxaya he goes back to the drawing board wuxuu leeyahay okay maanta maxaa khaladay sax losska maxaa ku sgaray asib marka planki ku laabanaa aad maxaa sameynaysaa revenge trading iyo emotions markaas ku qaadeen oo suuqi durbuwa kor taaganta waxaa rabtaa wixii haday qaladka sameysay inaa soo kabtid marka maxaa sameynaysaa qalad badan markaas sii galaysaa
waayahay sidoo ayuu qofku u hortagi karaa khasaaraha markaas sidee qofku u hortagi karaa khasaaraha xaqiiqda markaa ka hadlo marnaba kama hortagi karta khasaaraha because forexka ama professional trader ahaw ama hadda soo gal waxaa jirta laga wada sameeyaa tan forex kelima qosayso adduunka dhan ay qosaysaa maanta business markaa furto businesskaas I don't expect manual profit no you can right so khasaaro waa la kulmaysaa forex marka khasaaraha ma ka hortagi kartid balse waxaa samayn kartaa khasaaraha waa yareyn kartaa inaa cilmi saxsan baratid in planki ku dhaqantid istaraatiijiyad inaa raacdid disciplinekaad inaa ka shaqaysid design basics maanta dhan aa sheegay intaas uun inaa samaysid dan khasaaraha marka waa yareyn kartaa waa minimize gareyn kartaa laakiin maskaxdaada marnaba gees yani ha kaga dhignaato haddii suuqa soo gashid wax walba aa baratid in aa khasaari doontid khasaaraha markaas waxaa u qiimeynaa reer forex markaanaane waxyaabo dhowr ah waxaa ka mid ah kirada gurigiina markaa dhiibaya ama meesha businesska akula inaa dhiibaya because akoona ii furan akoon waa trade gareynaya kirima laga qaada waa maya laakiin once trade loss aa qaato markaas waxaa aaminayaa in yani kirada aa bixiyey canshuurta inaa bixiyey shaqaalihii oo dukaankii shaqeyn lacag inaa siiyey kii dhulka ititiraa lacag inaa siiyey korontadii inaa koronto ku shube kii biyaha inaa lacag siiyey marka khasaare markaa forex qaadatid expense ahaana lagu fikiraa khasaare ahaan laguma fikiro sidaa sheegay khasaare marka kama hortagi kartid laakiin khasaarada waa xakameyn kartaa waana maareyn kartaa wow perfect waayahay maxamed saa ognahay markii loo imaado qofka ardayga ah macalinka ah ama dhakhtarka xaalad walba ama meel walba waxaa loo baahan yahay discipline dhanka forexka iyo disciplineka waa sidee waa meesha ugu weyn oo qofka maanta traderka lagu baahan yahay haddaadan discipline lahayn waxba ma samayn kartid cilmi wax ma taraa si fiican cilmi aanan discipline waxba ma taraa waxbana kuma soo kordhinaa forex markii la joogo weliba extra level oo baahan tahay in disciplineka markaas high u yahay because suuqan si fiican u dhegeysta suuqan ma laha naxariis trading haddii aa samaysid qalad it will cost you qaladkaas waa bixi doontaa yani price waa dhiibi doontaa so discipline markay forex noqoto ani ahaan markaas ka hadlo forexka disciplineka wax ma ka bedeshay of course yes way ka bedeshay routiinkaada wax ka bedelaysaa forexka markaa arkaysid saa forex lacag weysmayso waa routiinkaaga inaa bedeshaa waqtigaa soo kicaysid saa u nooshahay waqtigaa seexanaysid waxyaabaha cunaysid waxaa xiranaysid salaadaha waqtigaa tukanaysid hadallada aa bixinaysid wax badan horta inaa soo bedesho sida forexka yani intaa lasoo gaarinba nolosha inaa soo saxdid waa so taas waad dareemi kartaa marka wax saameyn weyn leewa maanta markaa arday tahay iyo markaa trader tahay xogaa way ka yara duwan tahay because forexka siday iiday u hagaagto waa in noloshaada kale aa soo hagaagtaa noloshaada aa soo kale aa soo dhistaa hadalkan waa quote yani mar walba macalinkayga khayr allah siiye oona dhihi jiray haddii aa rabtid mualimu mar labaad waa salaamaya macalinka haddii aa rabtid forexna guul gaartid mar walba wuxuu dhihi jiray soo bedel xaaladahaagii hore ama noloshaada yani intaa forex soo gaarinba noloshaada iyo routiinkaa markaa soo bedel oo yani disciplinekaada markaas la imaa marka when it comes to trading discipline is a very high skill oo lagu baahan qofka traderka ah in markaa uu la imaado haddii aa rabtid lacag inaad samayso of course lacaga meeshu joognaa so haddii lagu dhaho discipline u baahan tahay why not waayahay siduu qofka ku heli karaa maalgelin hadduu uu barto xirfadan forexka سؤال في عوام سؤال في عدد بدنا يسدينا هذا فوركس على هذا العكتي ذا كان لو بلا دلير بدن أنا عند أيوة هذا سيف يعني إن دقسة أكتها هذا دونكوس بدله سيف يعني ما له بدونكو هرمله لأنك فوركس مركل لا إذا سؤال دونكو هرمله إذا نوار مرته بواجه أنا بلا وين إذا كان يسي هراء دي بيكو قبين إن هذه ما أنت أمريكا يعني بلا بكله بقول كهدور مسكون كهدور إن أو حكوسي مستدموجي إدل عكر كوسين اسمه جنين waxaa ku soo ama qof qaraabad ah inuu toban $10 ku dhiibo ama in qof ganacsata lacag lagu soo arooriyo si Soomaaliya sameynaysa lacag lagu soo arooriyo lacagta lagu dhiibo waa dhow lagu xisaabtamaa in hadda forex isbedeshay hadda waxa soo baxeen waxay dhahaan profams ama proprietary magac isma kari kari like proprietary fee amal laakiin dil soo gaabay profam alla sax profamka waa shirkado maalgeliyaan dadka traderska ah inta ay ku maalgelin waxa gadanaysaa akoomay leeyihiin marka $10,000 $20,000 $50,000 $100,000 $200,000 $400,000 ilaa $1 milyan akoomo ku jirtay leeyihiin marka lacagtaada ku xiran tahay iyo experience-ka markaa garsantahay hadda maanta for example kale ana waxaa rabaa $100,000 inaan ku trade garay manhist lacagtaas laakiin shirkad waxaa jirto
diyaar u ah in ay siiso akoon ku jirto $100 waxaan dhiibaa $500 mise $600 hadii uu badato $650 dhiibaysaa mise $700 xashirad laga baahan cashuurad yani mid ku taas laga baahan yahay lacagtaas $600 marka dhiibtid maxaa ku furmaya akoon $100 ku jirta ku furmayso akoonka marka hore shaqo marka ay bilaabi kartid waxa loo xirfad soo baran professional trader isku sheegaysa samaan challenge ku marsiinana waxaan la imtixaana sax laba imtixaan ku marsiinaan qaarkood hal imtixaan ku marsiinaa sax challenge-gaas marka dhaaftid oo laba imtixaan ay gudubtid ay ku leeyeen congratulations levelkii lagu talgal trader waa soo gaartay haddana markaas waxa ku siinayna $100 akoonkii ku jirta ku shaqeyso waxa soo saarteen $70 aan leedahay qaabkaas hadda marka maalgelinta loo helaa $70 soddonka ay leeyihiin soddonka ay iska marka qaarkood way sii ziyaadaan ilaa 95% ay ka gaarto okay but most of them waa profamka success rate aad u yar sababtoo ah si aad ku sheegay bini'aadamka emotions greed impatient lack of discipline waxaas baa la xiriiro andaas lacag waa inuu sameeyo qofkaas lacag degdeg ah inuu ku sameeyo soo marka waa hadda qofka maalgelinta oo dhankan kale iyo Soomaalida iyo hawrtiyo tukaan leh ina u tagay iyo waxa soo deensad ma la baahnimo ma baahnid kost $10 habarta soo qaad ka gubtid ما تقانا ويلكي محمد ده $10 إيقا وجو إسكت عفوا دلالة وامي وعلو ليه العقد كان هبرتها هديها العقد اللي من جزنين ما يعيرك كهاد أنت أوكي $100 مقبلها كرامك $100 رنت مركا كهاد ضدك من قيام مجعلي $100 ما أنت فوركس وحبة كمان العقد كمان وحبة العقد كمان $100 هدو قف إذا كورن $10 كان أنا كو سمينا كون كلا كسينا بيك ريد فلاك كعرق في كاس واتوك آمنين كعر أدونك مال أدونك كجرته 100% profit مجرته صح maybe وعليه شقوين أو أذكر كسر شقي كلينا 100% profit واجرته لكن 99.9% 100% profit مجرته سكامر شخيص بسواتاس صح كعر قفكاس مربح هذه شكل إماده العقد إيدي باكو شقي بريك شو قدالو دك وحتى markii forex loo Soomaalida waxa ognahay in saas oo kale ay ku soo bilaawdo dadka lacag keena waa new shaqeynayna qof walba $400 in la soo qaad qaar 2000 ay galiyeen kadibna la goonaa dad xarumo u furnay baxafiisyo si fiican xarumo u furnayna marka waxa leedahay intaad dadka lacagta ku aamin leeyahay wax yaris waaye runtii isqabe 2 bil iyo 1 bil si fiican wax u baro kidi profam ka aad wow perfect okay profam oo scammers ma jiraan way jiraan si loo hortay karaa marka waxa uu hortay kartaa in Trustpilot-gooda aad fiirisid Google-ka aad gashay Trustpilot aad dadka review ka bixinayna daawatid aad fiirisid tusaale hadii marka shirkad aad gal rabtid shirkadda tag Google galay shirkadda magaceeda geli Trustpilot-gooda tag akhri commentaries dadka ka dhacan because Trustpilot-ga no company can fake it wala yaabaa 10 comment email la soo qaataan wax positive ee sheegan balse hadii 100 qof ay xumaysid 10 kaaga email ay shirkadda soo geliso waxba kama tarayso marka Trustpilot waa meel muhiim ah oo shirkadaha laga socdo adduunka hadda because nobody can manipulate it ay waa laga yaabaa dhasaasha in email sameystaan oo feedback fiican ka bixiyaan but shirkad weyn oo thousands of people ku xiran thousands of email ma sameyn karto hadii la soo qiyaamo dadku way imaanayaan waa ku tuura aad marka Trustpilot fiiri review-geeda fiiri commentations fiiri waxyaabahaas oo kale ku mashquul qof waxa fiirsa sidoo kale dadka payout ka sameeyay lacag ka sameeyay kala baxeen sax waxyaabahaas marka fiirisid simply markaas you can give a start aniga ahaan sidee ku noqon karaa qof isku filan aan dad u daba fadhiisaneen inuu dhaqaale ka helo aan qof kale u shaqeynaynin oo maanta mushaar sugayo kale bil u shaqeynayo baad taqaanaa dadka loo shaqeynayo badan dadku ku dhiga hadlaan ugu yacaynayaan adiga inaad dulqaadeen la yaaba qofkaas oo kale sidoo lacag uu sameyn karaa meeshan oo waqtigiisa inuu ku kaco dalxiis aadi karo soo dalxiis ay sameyn kara lacag meeshuu rabaa soo joogo sameyn karo garoon banuun haduu daawanay sameyn karo intaas nolosha forex waxa ka heli kartaa xorriyad dhaqaale iyo xorriyad waqti waxa loo dadaalana xitaa qofkii inuu helo xorriyad waqti kaliya ina xorriyad waqti forex keeshid waxay kaaga baahan tahay markaas in aad la imaadid shaqadii loo baahan yahay oo trading ina baratid waqti aad gelisid hadii ana iska hadlo waxa jirtay marka forex barnaa 16 hours screen ka hor fadhi jiray shaah meesha soo dhiganaya tarmuus ka saadhameena gowlaashadana shaah kala dirsanaya tarmuus ka saadhameena meesha saa fadhiya qolkii isku soo xiraaya I don't want to communicate with anybody qof ina la hadlo ma baan qof ina raaco ma baan asxaabtida ka go'ay banoonigaas ka dhaafay
just ina baashas time ay geli so hadii aad markaas shaashadaas noocaas kale asaas iyo si ka wanaagsan time ay u gelisid oo waqti aad ku bisaacad dhowr aad ku bixis maalintii wixii aad barid practical aad ku sameeysid oo ay kaaga dhigtay hadii hataa maqaayad aad fadhiistid mobilka inaad soo baxay chat time aad sameeysid oo shaashadaada maanta dhan drawing aad sameynayso wixii lagu soo baray sabir practical badan aad sameynaysid then inta markii laga soo gudbo oo discipline-kaaga iyo emotions-kaaga iyo psychology aad ka shaqeynaysid jawaabta markaas aad rabtid oo ah in aad xorriyad dhaqaale iyo xorriyad waqti inaad heshid intaba waa samayn kartaa wayna kuu soo degdegaysaa waayahay tusaale arday ahay ama waxaan baranaa qof kale ay baraya ama akademiyada oo waxaa jira meeqa saacad ii baahay inaan barto marka xirfadan forex forex laba mid waa laba qaab loo kala bartaa qaab koowaad waxaa laga bartaa qaab dhageysi ah oo macalinku wax kuu sharaxayo dhageysanaysid qaab kalena waxaa in adiga arday wax isbartid iskuulka waxaan maqli jirnay macalin 25 waaye 75 waxaa waaye ardayga waa Soomaali baashaas runtii waxaa arkay markaa forex ka imaaday xaqiiq waa 25 oo macalinku siinaayo wuxuu ku sheegaa macalinka because forex markii la joogo demo chat time aa dhahaane waqti shaashada aad gelinaysid demo qofkan aad kaga badan tahay waqti shaashada aad gelinaysid demo markaa success rate-kaada high noqonaa why because indhahaaga waxay la qabsanayaan shaashadii waxsan يعني macalinka markaa uu iska sharaxaya in arkeenna markaas arki doonta marka practical ba just in wax lagu sharaxo wax lagu sheego just 10 minutes 20 minutes hadana class markaa joogno kale we just lecture for 10 minutes qofka wax sharaxna we give them examples and task u dirina qofka asaa baxayo then wuxuu sameeysanaa chat time kiisa 2 hours 3 hours horfadnaa shaashada asaana sameeysanaayo yani time ki waqtigaas asaa gelinayo practical ki markaa asiga sameeysanaayo waayahay adiga ahaan tusaale waxaa laga yaabaa aniga inaan core filmmaker ahay ama shaqooyin kale aan qabanayo kadib trading soo galaa laga yaabaa nin lacag haysta dhaqaale haysta markaas aan noqdo adiga ahaan maxaa u qabanaysa inta trading suuqa soo galay wax badan aan qaban jiray oo inta forex ka bilaaban hoodie waa soo gaday ukuna soo gaday qashinka waa aragtay oo boxyaasha oo dada chukaraasha ka aruuriyaan eedana mar waa ka shaqeyn jiray school had korna soo galay oo markaa walaasna ka soo baxay marka waxaa shaqooyin badan oo isku soo daday midda boxka kale waa shaqooyinka ugu jeclaan jirnaa samee boxka waxaa waaye warqadaha la tuuro maaragtay boxyaasha markii TV-ga laga bixiyo la tuuro marka kabaha laga bixiyo la tuuro oo banaanka lagu tuuro oo qaar dadka ku istaagayaan qaar xaqa ku tafaayaan qaar moose kor saarayaan then nimankan chakaraasha la ama kulistayaasha darbijiifyaasha way soo aruurinayaan shaqadaas marka shaqeyn jiray shaqa marka waxa ay jirtay oo runtii I used to enjoy when I'm doing that job waxa waaye customer-kii clients-kii waxa ahaan chakaraaga asaa u tagaa wadada doom shahada fadhiyo meel shaah banaanka lagu caabata hadii aan markaa fadhiyo waa istaagi jiray waa carir jiray marka waxa u tagaa qofkii chakaraaga hi how are you doing I'm good box kan obaarada muku aaminaa wuxuu ku leeyahay warnimo naga tag box Soomaaliya tahay box sayelisa qashinkan wanaadii maxaa ana ka galana box u baahan boxkigiisii adiga marka hawl kale meel kale sii geen jirtay ani markaas waa si qaada meel store laan meesha ka buuxsi jiray waxa geeysa jiray markaas waxa shirkada u geen jiray marka shaqooyin dayna qoto kuntaas oo wadada lagu gadgado hoodie dharka hoodie celista iyo boxkaas intaas ka soo shaqeeyay waayahay macallin walba ama baro walba ama qof walba trading ka ku jira suuqa ama internetka qaarna internetka ku jiraan oo waxay soo bandhigaan waa la arkaa qaarna ma la arkaa waxa kamid tahay dadka hawadaas ku jiro sax maxaan ku tahay ani waxa aan ku ahay forex-ka mid wax kale ka forex ana soo galaa assalaamu calaykum ismail ibrahim anagu aad marka social media internetka waxa ku soo gudbiyaa forex-kaas iyo dhalinyarta qaabka marka ugu faa'iideyn lahaa suuq inay ka shaqeystaan marka forex-kaas baa ka hadlaa inta badan oo ayda xoog saara waayahay waxaan jeclahay in dhalinyarta Soomaaliyeed heli karaan cilmi sax ah oo wax arbixi karo sax okay xarun maleed waa ka ilo xarun waa leenahay oo maasha Allah xarunteena hadda waxay ku taalaa Slimol fourth floor room 404 xaafadda Isli magaalada Nairobi marka Slimol oo Madiina marka soo horjeeda toolafka halkaas ku taalaa marka
meesha training ku bixinaa qofkii Nairobi joogo imaan kara qofkii kale oo maqan oo markaa rabo inuu cilmiga qaato haddana wadankana la joogin mise aanan imaan karin ayadana qaab online casharada waa ku siinaa waayahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ku daawanaya badanaa ka cabsada suuqan qalaad forex-ka iyo wixii trending oo dhan maxaa fariin ama talo siin lahayd waxaa siin lahaa horta cabsida maxay tahay cabsida waxaa waaye dada hore loo dhacay jiro had meel ma fadhina dabaqa saarna sax dabaqa ma dumi karaa xaqiiq waay soma wiisha gashay wiish koronto tagi kartaa albaabka soo in la furo adkaan doontaa gaari saaranta gaari waxay dhahan waa sanduuqa qabriga oo socdo cabsi jirta eedana shil waa gali kartaa right so I don't think any difference oo forex ay leedahay haddii u bad lacag ka lumayso waa laga yaabaa in dad qaarkood ay dhahaan lacagta macnaha geedaha ma darbiyada laga soo gurbi bro like if you want to succeed in life you have to take a risk hatarta qaada leedahay if you want to succeed in life you have to take risk money is a byproduct of the work and the risk you took marka haddii aad rabtid horumarna gaartid you should be taking the risk haddii kale qof risk qaataa shaqaalo noqon doontaa simple okay qof meed oo kale ma nin dhalinyaro tahay gaariiska wato qof walba oo dhalinyaro oo ii sheeg tartiibtooda jawidan iskaga jira waa iska rabaan oo badanaa dhalinyarada Soomaaliya waxaa lagu xantaa dhaqaalaha gabdhaha dibadda ka imaaday waxaasay gaadaan marka waxaa dhihi lahayd qofka inta wax ka sugi lahayd trading kaas baro suuqan lacag ku jirto gacantaada maalo si oo classic u labiso city to city gacantaada maalo duul ma fahanti leedahay cidna ku tashanin adiyan nobody is gonna save you bro adi isbadbaadi qofku imaanaya ku badbaadinaya malanuun ilahay Med Ibrahim oo kamid dadka xirfadleyda suuqan sariflaha nacayaha qalaad aad loo yaqaan waxaana dhihi lahayd hadda marka wixii Nairobi joogo soo dhawaadaan 12ka ku taana xaruntiina ku taala waa u faa'iideynay si fiican qofkii daneena marka inuu wax naga barto aadiya oo yaani rabo marka aanayna wax naga barto meesha soo imaan kartaa haddii aad marka adiga gooni wax bari kartid well and good but muhiimadu waxa waa in aan ku soo gudbino this shit works and there's a lot of money to make out of it wow aad u mahadsantahay Med barnaamijkeena dhalinyarada aan ku dhiirigelinayna maadaama marti aan ku ahayd mar kalena waan ku soo wada doonaa waan ku keenayna waan ku casuumayna mar kale insha Allah aniga waliba aan markaasi adoo dhalinyarada ku dhex jirtid hadda arday fara badan ah haysaa oo aad bartaa waxaan rajeynaa Soomaalida intaan fahansaneen suuqan inaad u faa'iideysid si fiican muhiimadeena waxa waaye dhalinyaro dhaqaalaha haysto nadiif in aragno insha Allah taasaan noo balana waan ku mahadsantahay bye